sharaftaada haddaad sharaftaada adigoo difaacaya ku dhimato adduunka inta joogtona karaamad ku noolaani aakharana waxaad qaadanaysaa derajada dadka maxay tahay jidka alle ku dhintay ee shuhadada la yiraahdo ay leeyihiin oo nabigu kanu yiri sallallahu alayhi wasallam waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiidun qofka isagoo difaacaya ehelkiisa sharaftiisa iyo milkiisa maamuuskiisa la dilo qofkaas waxa weeye shahiid oo qofkii jidka alle ku dhintay ayuu la darajo iyo maamuus iyo karaamo yahay marka waxa ka duuleynaa ee waxaanu leenahay shilimaadka lacagtiyo waxaanu shirad goynayn shilimaadka lacagta ee tirsanay naqaano shilimaadka lacagta waxaanu shirad goynayn sharaftaada weeye ha ku shakaalin booraan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يدقل كيني أنا كل هين بريكت يوتيوب إسماعيل سيد فضلنا تذكر عصبتها هي channel كسر دو سبسكرايب له كمل لكم وفيرو فيديو ولا لقرأ هذا هرون لو جوكتنا أطلب محسنتها هي بشوشية برواقية برادة الدون هي ندين رجينا أنت ندون كنشونه آخرنا رجينا الفردوسة الله هنقع السنور أمان تيمبا إن وحنمات كلمة يرى قابن كأوران دونا إن شاء الله وحلا هذا إن عرضها أما شرفته ملقاه ماموس كي عزيها إن marka laga yimaado cibaadada iyo Ilaahay uu noo abuuray in Ilaahay caabudno iyo xiriirkan Ilaahay naga dhaxeeya adduunkan inta aan joogno qof walba waxa uu ku nool yahay kaliya waxa weeye inuu sharaf iyo milga iyo maamuus ku noolaado oo aanu sharaftiisana isaguna iska dhimin dadkana aanu wax yeelin labada qodob oo kaliya aan ka hadlaynaa qofku isaga naftiisa ehelkiisa haday tahay xagga walaaladii hooyadii aabihii qaraabadiisa inta ku xeeran sharaftooda inuu ilaaliyo iyo inuu tiisa ilaashado ayaa intuu adduunka joogo waxa kaliya uu nool yahay ay tahay in marka laga yimaado xiriirka aan sheegay Ilaahay inaga naga dhaxeeyo Ilaahay noo abuuray cibaadadiisa sidaas oo ay tahay waxaan arkaynaa mararka qaar ko ama inta badan ba dad iyaga laftoodu sharafta iyo milkiiska xayuubinaya iyana cid kale ka xayuunbay iska xayuubinayo iska qaadaya sidoo kale waxaan arkaynaa dad iyaguna xoogay dadka kale ku yara xadgudbay oo milkihoodii sharafta iyo maamuuska ay lahaayeen iyaguna aad moodeen ku yara xadgudbayaan waxa kaliya oo qofku inuu ilaashado ay tahay intuu adduunkan korkiisa joogo waa inuu sharaftiisa ciisigiisa milkiisa maamuuskiisa ku noolaado inagoo taa ka duuleynaa ee waxaanu leenahay shilimaadka lacagtiyo waxaanu shirad goynayn shilimaadka lacagta ee tirsanay naqaano shilimaadka lacagta waxaanu shirad goynayn sharaftaada weeye ha ku shakaalin booraan wax aan aday maxay tolay oo meel yaalo oo la soo iibinayo aan lacag soo siisan karahaynin aan shilin ku goynayn sharaftaada weeye adigu booraan iyo godacawo iyo halmee halaq mareena hadhigin inta aad naftaadu isku sii jirtaa nooshad grif leedahay ku dhimo sharaftaada sidaa darteed waxaanu arkaynaa khaasatan waliba xagga hablaha markaan ka eegno hablo oranaya sharafteeda meel laga dhacay taacadi baan wala yimi hadeen ku sii dhawaano oranaya wana la kufsaday wana xoogay xoog waxna laga qaaday qofka marka soo eegto nabarku xagtin ku taala ma jirto midi la geliyay qori la dhacay rasaas ku taala oo jaban iyo feeris wadaartay arkamayno laf dheer oo kala taala oo iska caadi oo meel soo fadhiyo ka oranaya wali xoogay xoog wax laga qaad inta noloshaadu ay kugu jirto ee naftaadu ay kaasi grif leedahay aad nooshahay yaay marnaba dhicin in maxay hayto leey sharaftaada meel laga dhaco ku dhimo sharaftaada haddaad sharaftaada adigu difaacaya ku dhimato adduunka inta joogtona karaamad ku noolaani aakharana waxaad qaadanaysaa derajada dadka maxay tahay jidka alle ku dhintay ee shuhadada la yiraahdo ay leeyihiin oo nabigu kanu yiri sallallahu alayhi wasallam waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiidun qofka isagoo difaacaya ehelkiisa sharaftiisa iyo milkiisa maamuuskiisa la dilo qofkaas waxa weeye shahiid oo qofkii jidka alle ku dhintay ayuu la darajo iyo maamuus iyo karaamo yahay marka waxaan leeyahay dhammaanba akhyaarta ay ugu xidhan ee daawan doonto codkayna gaari doono khaasatan xagga hablaha la hadlayo sharaftaada iyo milkahaaga ilaasho kuna dhimo inta naftu kugu jirto aad sii grif leedahay marnaba ay dhicin in adiga oo meel laga dhacay cirdigaaga iyo sharaftaadii adiga walaalaha hooyada qaraabada dhan kasta in adigoo iska soo noolo soo taagan in sharaftaadii wax la yeelo dhammaantiin baa inta yarbaan oo nafteeda ka bilaabaya inuu kula dardaarmaya wasidaa iyo billahi tawfiiq